waxa uu ahaa sawirqaade waxa uuna geystay dhicii bangi ee ugu weynaa dalka Faransiiska waxa uuna dhacay lacag dhan 49 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddaba siduu u dhacay bangiga tuugaasi sideese loo soo qabtay ugu dambeyn su'aalahaas iyo kuwa kale baynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon ee ku soo dhawaada sheekada cajiibka ah ee sawirqaadihii tuuga isku bedelay waa sanadkii 1967 iyo magaalada Nice dalka Faransiiska halkaas oo magaalada Koonaheega ay ku noolaayeen qoys ka koobnaa oday iyo islaantiisa kuwaas oo ah qoyska ay sheekadeenu daaran tahay maanta gaar ahaan odayga reerka oo lagu magacaabi jiray Albert Spagari oo ahaan jiray askari howlgabay iyo nin faraha kula jiri jiray arrimaha lisa haatanse waa aabe koriye hal ay oo ku shaqaysta haatan sawir qaadista ama fotografiga waxa loo yaqaano oo uu magaalada uu joogo ka yahay sawirqaade aroos waxay sidaa ahaataba oo uu ku jiro nolosha degan Albert waxa ay keentay inuu ku caajiso nimcadaas isaga oo ahaa mid caadaystay ciyaarka khamaarka oo balwad u noqday uu kaga dhunto caajiska maadaama uu Albert ilaa yaraantiisii ahaan jiray qalqaali fudud sida la sheegana waxay marar kala duwan keentay qalqaalinimadiisaasi in la xidho kadib ficil uu ku kacay darteed oo sida la sheego waxa uu muddo 5 sano ah ka soo laacay xabsi kadib kolkii uu dhacay meelaan afka la soo marin karin waxay sidaa ahaataba Albert fudaydkiisii carruurnimo waxay u ekayd inaanu ka hadhin kolkuu weynaaday sidoo kale waxay iska caddayd in xatooyadii uu la qabsaday xabsigiina inaanu waxba cashara ka soo qaadan waayo maalin maalmaha ka mid ah isaga oo akhrinaya Albert buug ku saabsan dhicitaanada ayaa waxay ishiisu qabatay dhacdo uu ka warramayay qoraagu oo ahayd tuugo u dhacday bangi iyagoo ka galay bangiga bulaacadda gudahana u galay bangiga oo ku dhacay sidaa kolka uu Albert akhriyay sheekadaas buu ku dhashay fikir ah inuu ka dhabeeyo dhacdada uu buuga ku arkay oo uu u dhaco bangiga magaaladiisa sida ay tuugtaasi ugu dhaceen bangiga khiyaaliga ah taasoo keentay in maalin ka dambeeya uu ku xoogaysto Albert damaciisii dhicitaan isaga oo ugu dambeyn go'aansaday inuu ku kaco waxaan hore looga samayn magaalada uu ku noolaa oo ahayd inuu u dhaco bangiga magaaladaas oo lagu magacaabi jiray Society General si uu dhaco Albert bangiga SA waxa uu baahnaa qorshe iyo sidoo kale dadkii kala qayb qaadan lahaa dhicitaanka ama caawin lahaa kale waxa uu u baahnaa Albert inuu u dhowaado goobta uu rabo inuu u dhaco oo ahayd bangiga maadaama uu ku noolaa xilliga koonaha magaalada taasoo keentay inuu Albert raadiyo dhisme u dhow bangiga oo uu rabo inuu kiraysto si uu ugu fududaan karo inuu dhaco bangiga waxa uuna ugu dambeyn helay dhisme kaasoo u dhowaa bangiga oo uu kolkaa kiraystay muddo sana ah isagoo ka dhigay dhismaha studio uu ku qaado sawiraanta balse uu damaciisu ahaa inuu dhicitaanka ka geysta dhismaha dhexdiisa intaa kadib kolka uu kiraystay Albert dhismaha waxa uu ka furtay akoon qasnadeed isla bangiga uu rabay inuu u dhaco si uu u barto qaabka uu u shaqeeyo bangigu iyo sidoo kale qaab dhismeedka shax ahaan iyo weliba shaqaale ahaan bangigaas waxa ay sidaa ahaataba Albert waxa uu kala bartay bangigii iyo qaabka uu u shaqeeyo isaga oo ku waday oo iska dhigayay inuu yahay sawirqaade oo uu ku shaqaynayay haddana uu hoosta ka waday qorshihiisa tuuganimo waxa uuna ugu dambeyn Albert helay war aad uga farxiyay oo ninka shaqayn jiray bangiga uu rabay inuu dhaco oo ay saaxiib ahaayeen u sheegay oo ahaa in bangiga qasnadiisu aanay lahayn qalab kiciya ama alaam ee ay cagsiga leedahay ilbaab adag oo 1 mitir iyo bara xajmi ahaan iyo ballac ahaanba warkaas oo noqday mid ka caawin doona dhicitaankiisa ahaana mid uu ku farxay kolka uu ka maqlay ninka waxa uuna kolka Albert go'aansaday inuu ka soo galo bangiga dhanka bulaacadda magaaladaas oo lahayd shax isaga oo isticmaalaya dhismaha uu kiraystay si la mid ah siduu ka arkay buuggii uu akhriyay isagoo kolka uu bulaacadii magaalada galay in muddo ah kala bartay qaab dhismeedkeega iyo weliba shaxdeeda waxaana ugu dambeyn u caddaatay Albert inuu qodi karo bulaacadda inta uu ka gaadhay qasnada bangiga balse waxa uu u baahnaa haddii uu rabo inuu qodo inuu helo dad ka caawiya suurtagelintiisa isagoo isu keenay kolka Albert koox tuugo hore ahaan jirtay oo
deganayd kolkaa magaalo kale oo aan ahayn magaalada uu dhaca ka geysanayo si aan loo aqoonsan wejiyadooda iyo weliba shakhsiyadooda. halkaas buuna isku keenay rag lagu qiyaaso 5 nin oo uu mid kasta u xil saaray shaqo gaar ah oo uu ka geysanaya dhicitaanka. waxayna kolkaa ku bilaabeen sidaa qodaalkii godka, taas oo ay ogaadeen in bulaacadda iyo qasnadu ay isku jiraan masaafo dhan 10 mitir. waxaana intaanay qodaalka bilaabin go'aansadeen inaan la dareemin sanqadhooda oo ay u qodaan si degan oo aan lahayn jabaq fara badan, iyaga oo kolkaa meeshii dhigtay qalabo kala duwan iyo furaashyo aan quusin oo waterproof ah oo ay ku nasan karaan kolka ay qodayaan meesha. waxayna qodayeen godkii muddo 3 bilood ah iyaga oo ku xidhay laydhadh qubayna xadhka kala duwan godkii. ugu dambaynna waxa ay ku guulaysteen 3 bilood kadib inay gaadhaan qasnadii. waxayna kolkaa go'aamiyeen goorta ay dhicitaanka geysan doonaan ee ay urursan doonaan waxa ku jira qasnadaas. waxayna go'aansadeen kolkaa inay geystaan dhicitaanka waqti ku beegnaa fasax. kolkay Albert iyo kooxdiisii dhameeyeen qodaalkii godka ee ay gaadheen qasnadii, Albert iyo kooxdiisii waxa ay go'aansadeen inay dhicitaanka geystaan xilli lagu jiray fasax qarameed dalka Faransiiska, iyaga oo sida la sheego go'aansaday inay geystaan dhicitaanka dhammaadkii isbuuca ay bisha Julaay ahayd 16 sanadkii 1976, iyaga oo maalinkaa galay bulaacadii horena ka sii qaatay qalabkoogii dhicitaan iyo weliba cunadii ay cuni lahaayeen kolka ay dhicitaanka geysanayaan. waxayna kolkaa u dhaceen qasnadii, waxayna kolkaa ugu tageen in ka badan 370 qasnadood oo ay kolkaa mid mid u jabsadeen qasnadaha ilaa ay ka jabsan doonaan qasnadii u dambaysay, iyaga oo kolkaa ka helay qasnadahaas waxyaabo kala duwan oo isugu jira lacag, dahab iyo hanti kale oo kala duwan, maadaama uu bangigu kayd u ahaa magaaladaas oo dhan. waxayna sidaa ku dhaceen wixii ku jiray qasnadaha oo lagu qiyaasay maalinka inay ahayd 9 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo u dhiganta maanta 46 milyan oo doolarka dalka Mareykanka ah. waxayna sidaa ugu guulaysteen tuugtaasi iyaga oo aan hub iyo xoog toona isticmaalin dhicitaankaas si hawl yar. wuxuuna lagu tilmaamaa inuu dhicitaankaasi ahaa kii ugu weynaa abid taariikhda waddanka Faransiiska, iyaga oo kolkaa isaga baxay qasnadii kolkay dhammaysteen una sii dhaafay ciidankii fariin kadib kolkay xaalufiyeen bangigii Societe Generale. sug haddaad ka heshay xalqadan fadlan like saar, subscribe na dhex kanalka si aynu u gaarno 50 kun oo subscribe. dad intaas samaysay aynu dib ugu laabanno xalqadeena. kolkii ay dhaceen bangigii 6 nin ee uu horgalaha u ahaa Albert ee ay ka huleeleen goobtii, waxa lagu warhelay dhicitaanka kolkii ay fasaxa ka soo laabteen shaqaalihii bangiga oo arkay qasnada iyo xoga ka qodan dhabarkeega. isla markiiba waxa warkii dhicitaanka uu gaadhay daafaha dunida, waxaana qaadaa dhigtay saxaafadii dalkaas, taasoo keentay inay shacabkii dalkaasi ishortumaan bangiga oo ay dalbadaan lacagtii u taalay in la siiyo, iyaga oo kolkaa ay ciidanku ka hortaagnaa inay gudaha u galaan bangiga, lana mooday meesha inuu mudaharaad ka dhacayo. dhanka kale ciidanku waxa ay wadeen baadhitaan ay islahaayeen kusoo qabta tuugada dhaca ka dambaysay oo ay ka dhex raadinayeen bangiga caddaymo ay kusoo qaban karaan. nasiib xumase baadhitaanadaas iyo dabagalka ay ciidanku sameeyeen kumay helin wax caddayn ah oo aan ka ahayn weelashii iyo weliba cunadii ay ka tageen tuugtii dhicitaanka geystay oo aan ahayn xilligaa wax lagu soo qaban karo raggaas, taasoo keentay kolkaa in kiiskaa lagu daro kiisaska aan la xallin. walow ay heleen godkii ay tuugadu ka soo gashay ee dhanka bulaacadda iyo fariintii ay tuugadu u sii dhaaftay, iyagoo kolkaa arkay in tuugtaasi ay u qoday godkaasi cajiib ah oo ay sibidh mariyeen, sidoo kalena ay ku xidheen laydh, iyaga oo ay u caddaatay in dhacani ahaa mid laga shaqeeyey oo in muddo ah lagu jiray. dhanka kale ninkii Albert waxa uu ku faakahaysanayay lacagtii uu xaday, waxa uuna sida la sheego Albert furay xaaskiisii ay wada joogeen, waxa uuna u baxsaday dhanka iyo dalka Ameerika oo uu ka samaystay halkaa nolol cusub isaga oo guri ka iibsaday gobolka Florida. wuxuuna kolkaa ku xasilay halkaa isaga oo ka faakahaystay lacagtiisii, taasoo keeni doonta faakahaysigaasi inuu ku kaco ficil doqonnimo ah oo keeni doona in la soo xidho tuugaas ay ciidanku awoodi waayeen inay soo xidhaan in muddo ah.
kolkii ay dhaca ku guulaysteen Albert iyo kooxdiisii ee ay ku baraarugeen ciidankii iyo shacabkii dalka Faransiisku inay dhacan yihiin oo la xaalufiyey bangigii SA. dhanka kale waxa uu Albert ku faakahaysanayay lacagtii uu dhacay isaga oo ku sugnaa gobolka Florida, taasoo keentay inuu ku kaco sidaynu soo xusnay faldoqonnimo ah, kaasoo ahaa inuu shaqo u doonto isaga oo iska dhigaya khabiir ciidanka. kadib kolkii uu booqday xarun ay leedahay CIA-da dalka Maraykanku, isaga oo kolka uu booqday u sheegay inuu yahay tuug khabiira yahayna inay bele ka dhacday, una bandhigay inay shaqaalaysiiyaan isaga oo kibirsan oo sanka taagaya. doqonnimadiisa se kamabay gurin ciidankii CIA-du, manay siin wax shaqo ah. cagsiga waxa ay wargeliyeen ciidankii dalka Faransiiska ee uu soo dhacay, waxayna u sheegeen inay hayaan tuugga ay raadinayeen ee soo dhacay bangigoogii. waxayna kolkaa u caddaatay ciidankii inuu Albert ka dambeeyey dhacaas, waxaana la ogaaday inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay dhicitaankaas, taasoo keentay inuu ku kaco fal kale oo doqonnimo ah Albert, isaga oo dib ugu laabtay dalkii Faransiiska ee uu soo xaday, taasoo keentay in markiiba lagu qabto garoonka dalka lana dhigo xabsi maadaama la helay warka ah inuu ka dambeeyey dhicitaanka. waxaana ugu dambayn lasoo taagay Albert maxkamad, isaga oo kolkaa maalinkii la keenay maxkamadda intaan la saarin uu hal mar uu ka booday daaqadii maxkamadda intaanu kiiskiisu la furin. wuxuuna kolkuu ka booday daaqadda ku dul dhacay gaadhi hoos taagnaa daaqadda, isaga oo markiiba ka kacay meesha maadaama aanu waxba noqon. waxa uuna raacay mooto sugaysay, wuxuuna sidaa kaga baxsaday maxkamaddii iyo sidoo kaleba ciidankii. wuxuuna sida la sheega ka baxay markaa dalkii Faransiiska isaga oo qabtay dhanka iyo dalka Argentiin. waxaana la sheegaa intaanu baxsan ka hor in uu lacag siiyey gaadhigii uu ku dul dhacay mulkiilihii iska lahaa, taas oo ka dhigtay kiiskiisii inuu noqdo mid caan ah oo ay qaadaadhigaan saxaafadda caalamka oo dhammi. sida cajiibka ah ee uga baxsaday ciidanka iyo weliba in uu lacag siiyey gaadhi uu ku dul dhacay. maalinkaa kadibna Albert dib looma helin, waxa uuna ku noolaa Argentiin in muddo ah, isagoo kolkaa ka sii baxay qabtayna waddamo kale oo ku yaala qaaradda Ameerika iyo qaar ka mid ah Yurubba. waxaana la sheegay inuu bedelay Albert shakhsiyaddiisii iyo sidoo kale inuu la baxay gadh uu ku qarinayo cidduu ahaa. waxa uuna ku faakahaysanayay lacagtiisii, waxaana la sheegaa inuu ugu dambayn dib ugu soo laabtay dalkii Faransiiska xilliyada ka mid ah, walow dhuumasho ku jiray. waxa uuna ahaa ninkaasi tuug ay cid waliba taqaan, balse aan cid laga soo dhex qaban karin. waxaase cajiib ah inuu bixiyo waraysi isaga oo ku jira baxsashooyinkiisa oo uu waraystay weriye caanahi. ugu dambaynna Albert waxa uu ka qoray qisadiisii buug inta uu ku jiray baxsashooyinkiisa, kaasoo noqon doona mid laga sameeyo filin muddo kadib. dhanka kale raggii dhaca la geystay waa la soo qabtay badankoogii waana la xukumay, walow aanu Albert arkin wax xukun iyo xadhig toona ah. waxaana la sheegaa inuu ugu dambayntii u geeriyooday kansarka samabada ku dhaca taariikhdu kolkay ahayd 8 Juun sanadkii 1989. waxa uuna sheekadiisu noqotay mid adduunka oo dhan ka caan ah oo laga sameeyo filin. waxa uuna ku geeriyooday dalka Talyaaniga isagoo ku geeriyooday 56 sano jir. wuxuuna noqday Albert tuugala taariikhda dalka Faransiiska iyo gebi ahaanba ta caalamka, maadaama uu ku kacay tuugannimo cajiib ah iyo sidoo kale baxsasho fajac ku dhalisay cid kasta oo wax la socotay kiiskiisa. waad ka heshay xalqadan fadlan like saar, subscribe na dheh kanalka oo ka mid noqo xerta xogdoon, lana soco xalqad cusub isbuuc kasta maalinka Jimcaad. waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeennan weerahay ku qoreen gidaarka kolkay dhaceen bangiga, oo macnaheedu noqonayay waxaanu dhacaa ku geysanay hub la'aan, hagardaama la'aan iyo weliba rabshad la'aan. Faransiisna ku noqonayay sans armes, ni haine, ni violence. N'oubliez pas de vous abonner, de liker l'émission et à la semaine prochaine.